the change qof sidoo isbedel u leeyahay isbedel ma inuu baahannahay isbedelkeenu u baahannahay sideenuu gaari karnaa maxaa isbedelka qofka ka xashiyo wuxuu doonaba ha noqday yaa isbedelka u baahan isbedel hadii la waayo what kind of life baan ku noolaan karnaa intaasaynu isleeganaa maanta laakiin intaynaan eeginba change-ka iyo isbedelka qofku inuu rabo iyo in kale inaa kala ogaanaa muhiima waayo waxa qiimeynta ugu horeysa qaadanaya waxa weeyaan qofku waxa uu rabo buu nolosha ka gaari karaa waynagii hore u sheegnay niri the outer world ama adduunyada aynu arkayno indheena ka hor muuqata simply waxa weeyaan the reflection of our inner world adduunka gudaheena ama sidaynu u aragno ama sidaynu inagu nafteena u aragno iyo waxyaabaha inaga dhex buuxay aqaa'id iyo mabaadi' iyo afkaarteenu ka haysano nafteena is simply waa waxa aan arkayno and people make all the difference marka ay timaado sida wax loo arko haddana gadan fikrin idin soo bandhigay idinka intiina daawanaysa barnaamijka laga yaabaa inuu qofba si u qaato some of you inay dhahaan that's great mashallah waa loo baahan yahay in la qabto so let's do it qaar baa sidaa oranaya waxaan oran karnaa kuwaasi in their inner world waxa ku jirta is-aaminsanaan nafsiya waxa ku jirta positive thinking waxa ku jirta garwaaqsi nafeed iyo garwaaqsi dadka naftiisa u dhigma waxa ku jira wanaag iyo hibaa ku jirta therefore waa sababta uu xagga nolosha aadamuhu ay arkayaan the visible world ama adduunka la arkayana uu positive uga noolaanayo haddii qofku yidhaaho fikran idin soo bandhigay that's not possible simple waxaan xaggaa ka daalacan karnaa in qofka gudihiisa ay ka buuxaan self limitations xuduudo nafsiya isxidhxidhid iyo isxakamayn isagu uu samaystay oo weliba aan xaqiiqda u dhaweyn xaqiiqda saayid uga fog waxyaabo qofku isagu message iyo propaganda uu isagu iska samaystay oo uu abuurtay kaliya si uu naftiisa u xanibo oo u xakameeyo marka hadiiba ay tahay marka adduunyadan aan arkayno waa waxa markaynu ka dhaqaaqnay the invisible world to the visible world waxay midday dhibaatooyin badan and that's wa halkan ka bilaabi doono maanta change-ka isbedel ma u baahan tahay adigu isbedel ma u baahanahay anigu isbedel maynu u baahannahay dhammaanteen inagu let me talk about myself idinkeeda ma garanayo laakiin I need it sidaan cunto iyo biyo iyo labis iyo nadaafad iyo caafimaad ugu baahanahay baan isbedel ugu baahanahay kol haddii maalintii aan noolaanayaaba ay waajib tahay inaan la noolaado with new vision aragtiyo cusub dareenno cusub khibrado cusub wanaagyo cusub expectation iyo filashooyin cusub rajooyin iyo jadiilo cusub haddii maalin kastaba aan sidaa ula noolaanayo noloshayda then maxaa iga xajinayo maxaa ii diidaya maxaa dib igu diidaya maxaa iga hor jooga maxaa iga celinaya inaan every day aan soo kocaan oo caafimaad qaba intaan ilaahay u xamdiyayna ya rabbi waad i caafimaadisay then I should make something great wixii shalay wax shalay aan qabtay sidii shalay aan ahaa halkii shalay aan ku sugnaa wixii xalay aan haystay sidaan shalay u fikirayay I should make a forward step waa inaan hore uga dhaqaaqa oo sameeya at least wax ka duwan wixii shalay si ka fiican sidii shalay aragti ka fiican aragtidii shalay niyad iyo rajo iyo didilo ka fiican sidii shalay so on my own perspective waan u baahanahay isbedel aan weliba uma baahni I'm really thirsty for it waan u gaajoonaya waan u haraadanahay ciil iyo cadhaan u qabaa waan fadhihi kari lahayeeba aad baan ugu haraadanahay then haddaad dareenkaa la qabto we'll try sida change-ka loo sameeyo we'll try waxyaabaha inaga xajinaya isbedelka we'll try inaan isla fahano waxyaabaha inaga dib inooga dhigaya inaan isbedelno waxaan isku dayaynaa inaan bal sharaxno everyone wuu jecel yahay guusha qof walba wuu jecel yahay qofka guulaysta qof walba wuu jecel yahay marka guusha laga sheekeynayo qof walba wuu jecel yahay inuu maamuusnaado qof walba wuu jecel yahay inuu nolosha meeqaam sare ka istaago qof walba wuu jecel yahay inay cidhibtiisu hagaagto qof walba wuu jecel yahay in kor loo eego qof walba wuu jecel yahay in noloshiisu nolol sama iyo sareedo ku warisaan then hadday sidaa tahay oo sidaa aad rabtaan oo rabitaankeenu isku mid yahay waxaynu u baahannahay isbedel haddaynu u baahannahay sidaynu ugu baahannahay waxaan ma ku biiray weli nolol maalmeedkeena every day aan la soo kacayno anu haabaan qabaa yes qofku hadduuna isbedel samaynayn hore u dhaqaaqayn wixii hore uu soo maray ka maydhanayn iloobayn hore uga dhaqaaqayn khaladaadkii ka dhacay iyo gafafkii ka dhacay wax ka baranayn kadib hore uga dhaqaaqayn then that person wuxuu ogolaaday inuu istag ku noqdo uu ku dhego meeshuu joogo siduu u joogo meeshuu joogo ayay nolosha socotaa time going laguma sugayo as time is going waxa la rabaa inaad adna la socoto
si aad meeshaad gaaraysaad ugu dhawaato every day and every sunrise maalin kasta soo kacdaaba cadad kastoo maalin kasta soo baxdaa waxa waajiba inay noo dhawayso meeshaynu rabno ilaa in waxaynu u dhawaanaynaa every second every minute waxaynu u dhawaanaynaa dhimashadeeni waxaynu u dhawaanaynaa qabrigeeni waxaynu u dhawaanaynaa the end of our life marka inagoo sidaa ugu dhawaanaynaa on the other side we should get closer meeshaan rabnay waa inaan u dhawaanaa haddayna sidaa noqonayna definitely nolosheenu waxay aqbashay oon ku raalli noqonay inaana taariikhi naga hadhin inaan qof sugan oo la mahadiya inaan noqon qof adduunku wax ku soo kordhiyay inaan noqon qof naftiisa ka faa'iideeyay waxyaabihii la siiyay aan noqon waxaasaynu ogolaanay aan I don't think inuu naga mid yahay qof ogolaaday inuu siduu u joogo uun nolosha ay dhamaato